madaxdu waxay isku raacday in Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Farey uu ahaado kusimaha taliyaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya inta madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo marsiinayo ra'iisul wasaaraha taliye iyo taliye ku xigeen kadibna la marsiiyo golaha wasiirada si madaxweynuhu uu ugu soo saaro dikreeto. madaxdu waxay isku raacday in kiiska Ikraan Tahliil Faarax loo daayo hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka waxaana la faray hay'adaha amnigu in ay gacan ku siiyaan gudashada xilkooda. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal qodobada aad muuqaalkan ku daawan doontaana waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble oo soo afjaray khilaafkii ka dhaxeeyay guux caawa ka jira magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya qodobada ay ku heshiiyeen ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxweyne Farmaajo aanu ogaanay maxaa ka jira in Rooble uu ka tanaasulay kiiska Ikraan Tahliil Farmaajona uu ku guuleystay Yaasiin Farey inuu noqdo agaasimaha NISA wax walba ku saabsan khilaafkii madaxda Soomaaliyeed ka dhex jiray ee la soo afjaray ayaanu daawadayaal idin soo gudbin doonaa Sheekh Shaakir oo galabta ka hadlay duulaanka lagu yahay magaalada Guriceel baaqna u diray madaxweyne Qoorqoor ra'iisul wasaare Rooble oo u hambaliyeeyay maanta sanatarada lagu doortay magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland iyo sidoo kale daawadayaal muuqaalkan waxaad ku daawan doontaan muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cali Xarbi oo lagu soo dacweeyay in uu dilay xildhibaan lagu magacaabo David Ames oo toddobaadkii hore lagu toogtay gudaha dalka UK qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad channelkeena ku cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu aalaaba halkan soo gelinno aynu ku bilownay daawadayaal caawa waxaa ka jira guux iyo weliba dabaaldeg weyn magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kadib markii madaxda Soomaaliyeed ay soo afjareen khilaafkii ka dhaxeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble ayaa heshiis ka gaaray khilaafkii u dhaxeeyay sida uu sheegay xafiiska ra'iisul wasaaraha afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Maclimu oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in labadan mas'uul ay soo afjareen khilaafkii ka dhaxeeyay arrimaha lagu heshiiyay ee uu sheegay afayeenka xukuumadda ayaa waxa ka mid ah kow in iyada oo la eegayo dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashada ay madaxda isku raaceen in la dardargeliyo howlaha doorashooyinka laba inay si buuxda u wada shaqeeyaan hay'adaha amniga dalka si loo sugo amniga doorashada laguna hortago kooxaha argagixisada saddex in wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur uu sii wato shaqadiisa oo loo daayo waxbana aan laga bedelin shaqadiisa qodobka afraad ee ah qodobka Farmaajo uu ku guuleystay ayaa waxay tahay in General Bashiir Goobe uu Rooble hore ugu magacaabay taliyaha NISA loo magacaabo wasiiru dawle xilkaasina laga qaado qodobka shanaad ayaa ah in Yaasiin Farey oo Farmaajo hore ugu magacaabay inuu ahaado agaasimaha kumeelgaarka ee NISA uu wali xilkaasi sii hayo oo loo daayo oo noqdo taliyaha NISA inta uu Farmaajo ka soo magacaabayo taliye cusub oo loo soo marsiinayo golaha wasiirada si ay u ansixiyaan qodobka lixaad ay ku heshiiyeen oo ah qodobka ugu miisaanka weyn arrimaha isku hayeen Farmaajo iyo Rooble ayaa waxa ay tahay in kiiska Ikraan Tahliil Faarax loo daayo hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Maclimu ayaa sidoo kale sheegay in madaxda Soomaaliyeed ay ku heshiiyeen in la dardargeliyo doorashooyinka dalka oo si degdegna loo bilaabo doorashada golaha shacabka bismillaahir rahmaanir rahiim qoraal saxaafadeed Muqdisho Oktoobar 2021 kulan ay yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa looga wada hadlay qodobadan kow dardargelinta howlaha doorashooyinka labo xoojinta wada shaqaynta iyo dardargelinta hay'adaha amniga saddex xalinta kala aragtiduwanaashihii ka dhashay hoggaanka hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed afar kiiska Ikraan Tahliil Faarax kulankan oo ku qabsoomay jawi wanaagsan madaxduna ay diiradda ku saareen maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo danaha qaranka ayaa la isku raacay qodobadan kow ayadoo la tixgelinayo dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashooyinka ayaa madaxdu waxay isku raacday in la dardargeliyo howlaha doorashooyinka waxayna ugu baaqeen dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya inay sida ugu dhaqsiyaha badan ku bilaabaan usbuucyada soo socda doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya labo in si dhow ay u wada shaqeeyaan
hay-adaha amnigu iyaga oo xoogga saaraya adkaynta amniga xasiloonida guud ee dalka xilligan xasaasiga ee dalku uu ku jiro doorashooyinka lana xoojiyo la dagaalanka argagixisada al-shabaab 3 wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur inuu sii wato shaqadiisa si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka 4 in General Bashiir Goobe loo magacaabo wasiir dawle 5 madaxdu waxay isku raacday in Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Farey uu ahaado kusimaha taliyaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya inta madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo marsiinayo ra'iisul wasaaraha taliye iyo taliye ku xigeen kadibna la marsiiyo golaha wasiirada si madaxweynuhu uu ugu soo saaro dikreeto 6 madaxdu waxay isku raacday in kiiska Ikraan Tahliil Faarax loo daayo hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka waxaana la faray hay'adaha amnigu in ay gacan ku siiyaan gudashada xilkooda ugu dambeyn madaxdu qaranku waxay u mahadcelinayaan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo mas'uuliyiinta kale ee u dhabar adeegay si madmadowgii madaxda qaranka ku dhex jiray loogu dhamayn lahaa isfaham iyo is-afgarad doorashaduna ay u socoto si habsame leh madaxdu waxay u muujiyeen shacabka Soomaaliyeed sida ay uga xun yihiin walwalkii ay dareemeen maalmihii la soo dhaafay iyagoo u ballan qaaday shacabka in ay si midnimo leh uga wada shaqayn doonaan sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho hufan loona adkayn lahaa amniga guud ee dalka dhammaad maamulka galmudug ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah uga hadlay qorshaha dagaalka ka dhanka ahlus sunna wal jamaaca kadib markii ay gacan ku hayntooda la wareegeen magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska galmudug Axmed Shire Falagle ayaa shaaca ka qaaday in maamulka qoorqoor uu qorsheynayo in si farsamaysan oo aan dadka rayidka ah iyo kuwa caadiga ahba waxba lagu gaarsiinin ay kula wareegaan Guriceel sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug ay kaabiga ku hayaan degmada Guriceel oo ay ku sugan yihiin ciidamada ka amar qaato hoggaanka ahlus sunna dhanka kale hogaamiyaha ururka ahlus sunna Sheekh Shaakir ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda magaalada Guriceel oo gacanta ay ku hayeen 20kii maalmood ee la soo dhaafay waxaana uu digniin culus u jeediyay ciidamada dawladda iyo galmudug Sheekh Maxamed Shaakir ayaa sheegay in ciidanka dawladda Soomaaliya ay duulaan ku soo yihiin magaalada Guriceel isla markaasina taasi ay sabab u tahay dhammaan dadkii ku noolaa magaaladaasi inay barakacaan waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin wada hadal isla markaan jirin wax dagaal ah oo dhankiisa wado waxa uu tilmaamay inay soo dhaweynayaan baaqyada ka imanayo laamaha kala duwan ee bulshada iyo qaar kamida beesha caalamka waxaan leenahay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ha iska ilaaliyeen in ay ka sameeyaan galmudug dhexdeeda dagaal inay ka sameeyaan oo ay ku soo qaadaan magaaladan Guriceel dagaal inay ku soo qaadaan ayakoo xoogii dalka Soomaaliyeed ah ayakoo dan gaara fulinaya arrinkaasna waa ka digaynaa waa inaan la qaxin dadka waxa lagu jira waqti roob ah waqti qorax ah ma u malaynahay runtii mana malaynayn in shacabka Guriceel looga aarsanayo maxaa culimadiina u soo dhaweydeen oo ugu bannaan baxdeen baaqyada nabadeed ee ka soo kala yeerahaya qaybaha bulshada Soomaaliyeed waxaan halkan ku cadaynaynaa annagoo ku matalaynaa ahlus sunna wal jamaaca in aan soo dhaweynayno baaqi ka soo yeeray culimada diinka ahlus sunna wal jamaaca ee Soomaaliyeed ee meel kasta ha joogeen ku baaqeen nabadda gobolada dhexe khaasatan galmudug magaalada Guriceel waxaan soo dhaweynaynaa codkooda ay ku baaqeen nabadda iyo waxa la wixii jiray in lagu dhameeyo wada hadal iyo is-afgarad waxaan soo dhaweynaynaa baaqi odayaasha dhaqanka galmudug ay soo jeediyeen ay ku baaqeen iyakuna nabadda iyo in la joojiyo xabadda isagana waa soo dhaweynaynaa
waxaan soo dhaweynaynaa baaqii siyaasiyiinta Soomaaliyeed qaybahooda kala gedisan ay soo jeediyeen iyaguna oo ku baaqeen arrinka Galmudug in nabad lagu soo dabaalo oo xabadda la joojiyo wixii la kala tirsaana lagu dhameeyo wada hadal. waxaan soo dhaweynaynaa baaqii ay soo jeediyeen UN-ka iyo safaaradaha Soomaaliya ku yaala oo iyakuna ay sidaas oo kale ay ku baaqeen in nabad la qaato xabadna aan la ridin wixii tabashaana lagu xalliyo wada hadal. baaqyadaas oo dhan waa soo dhaweynaynaa, garabkeennu aad baan u soo dhaweynaynaa. inta ka shaqaysay waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin ayaan leenahay. annaku cidna duulimaad kuma nihin, waxaan ilaalinaynaa danta shacabka Soomaaliyeed ayaan ilaalinaynaa. waxaan ilaalinaynaa danta shacabka Galmudug ayaan ilaalinaynaa. waana nala ku yaqaan horay ayaan u ilaali jirnay. Galmudug gogasha ay isugu timid ciddii dhigtay baan nahay haddii aanaa ahlu sunna wal jamaaca. annaka ku midaynay mana aanan u haysan dadkii mideeyay inay beegsanayso, ma aanan u haysan. waxaan isku ogeyn inaan wada beegsanno shabaab, inaan wada beegsanno taas ayay ahayd yacni wixii annaku aan doonaynay. laakiin ujeeddadii in si kale loo khaldo oo loo adeegsado waa nasiib darro. in looga aarsanayo bannaanka taga la leeyahay oo ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya ee loogu talagalay loona maalgelinaya inay shabaab la dagaalamaan, waddankana amni ka dhigaan, inay iyaku amni darro ka shaqeeyaan oo ummadda qaxiyaan oo ummadda bannaanka geeyaan roobka iyo kaneecada iyo shubanka iyo waxaas u banbixiyaan. arrinkaasi waa arrin aad iyo aad u yaab leh, taariikhdaana qoraysa. waxa weeye marka arrinka waxaan leenahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dadkii toosinayay dariiqa fiican ku duwaya baana, dadkii ku tawjiihinaya la dagaalanka argagixisada baana. halkaas inaan u tawjiihino ayaan diyaar u nahay, inaan isu gaashano garab ay nuugu noqdaan, annakuna ugu noqono isu garabsano amniga Soomaaliya, amniga Galmudug ay naga gacan siiyaan, amniga Galmudug yacni ay ku dadaalaan. taasna aad baan ciidanka qaranka Soomaaliyeed aan ugu boorinayaa iyo taliskoodaba. waxaan leenahay Galmudug waxaan aad iyo aad yacni ugu tirtirsiinayaa inta ay ka dhaxaydaa inay ilaashadaan oo ilaaliyaan sidii ay u ilaalinayeen nabadoonnadii ku dhawaaqay nabadda iyo xabad inaysan dhicin oo kaleeto. waa in ay shaqeeyo caqligu, waa in uu shaqeeyo yacni caqligu inuu shaqeeyo, cilmigu shaqeeyo wey. alxamdulilah rabbi waddankaani waxa weeye deegaamadii aan difaacayno khawaarijta ka xoreynay muddo adiga 12 sano 13 sano ku dhow aan gacanta ku hayna wey. Galmudugna aan isugu keenay waa inay Galmudug ilaashataa, in Galmudug dhexdeeda dhibaata aysa ka dhicin waa inay ku ilaashadaan, inaan xabadu ka dhicin waa inay ku ilaashadaan, waa inay u midoobaan ciddii xabad la ordeena la ogaado oo xabad rabta inay wax ku xallido iyo xoog weyn waa in la wada arkay jooji la yiraahdo. alxamdulilah rabbil caalamiin. arrimahaas runtii aad iyo aad ayaan intii ka shaqayday ugu mahad celinaynaa. deegaankani waa amni, wax dhibaataahi kama jiraan. waxaan idho ku soo dhaweynay markii annaku aan nimid xataa waxaan idhi maamulkii ka shaqaynayo shaqee, amnigii ka shaqaynayo shaqee, waa idinku gacan siinayna wax alla waxaad iska tabanaysaan. shabaaba carrada wax ka afduubaa layidhi waa idinka ilaalinaynaa. korjoogtadaasaan noqonaynaa oo deegaanka oo dhan iyo aanu noqonaynaa. markii sidaas aan idhi annakoo isu diyaarinayno meel cidlaa degan oo isla khawaarijtaas aad isu diyaarisaan oo dadka u carbidaan, maadaama ay qaadatay baabuurtii Galmudug, baabuurtii maamulkii Galmudug, baabuurtii madaxdii Galmudug ay qaadatay, waxaan idhi shacabkii oo qayliyaya uun baan u nimid markaasayna daydiidaan haddana waana ka aqbalna.
markayna soo dhoweeyeen in la yidhaahdo xaad u soo dhoweydaanoo shabaab aan uga daraanno maamulkii waxaan malaysanayna maaha. marka arrinkaas aad iyo aadaan bulshada galmudug u bogaadinayaa sida ay isu bahaysteen. waxaan kaloo bogaadinayaa culimmada ahlu sunna wal jamaaca meel kastay joogaan. waxaan bogaadinayaa culimmada u istaagtay inay shacabkooda iyo bulshadooda difaacaan oo ka difaacaan khawaarijta ka difaacaan. meeshii loogu talagalay dowladda federaalka inay gacan siido oo ciidamka xoog u xoojiyo ciidamada yacni waxa weeye runtii waxa weeye waxaad moodaa si kale in dhaqankii noqday. arrinkaas iyadana waa ka digaynaa, bulshadana waa u mahad celinaynaa qaybaheeda kala gedisan. waxaan idin leenahay shukran lakum jazaakum allahu khayra aljazaa. waxaan leenahay bulshada yacni la qaxiyey oo bannaanka loo saaray, waxaan leenahay ku soo noqda guryihiinna. waxaan leenahay intii wax qaban karta waa inay bulshada wax u qabtaan, hadday tahay hay-adaha, hadday tahay ganacsatada, hadday tahay bulshada qaybaheeda kala gedisan. waa in dadka dhibaataysan wax loo qabto. qofkii qof muslima oo dhibaataysan wuxuu gala ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka thawaabinayaa, waa u gargaarayaa. ugu dambayntiina daawadayaal booliiska dalka Britain ayaa Cali Xarbi Cali oo Soomaali ah si rasmi ah ugu soo oogay dacwadda inuu dilay xildhibaan David Ames, waxaana ay sheegeen in ficilkaasi uu ahaa mid argagixiso. David Ames oo ahaa 69 sano jir ka tirsan xisbiga Conservative-ka ee ra'iisul wasaare Boris Johnson uu hogaaminayo ayaa jimcihii tagay lagu dilay mindi isagoo oo dadka soo doortay kula kulmayay kaniisad ku taalo deegaan 65 kilomitir u jirta magaalada London. booliiska ayaa sheegay in Cali uu ka soo muuqan doono maxkamad ku taalo magaalada London. intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa daawadayaal muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.